jenaraal maxamuud waxa uu diiday inuu sheego shirkadaha la siiyey magacooda hase yeeshee galka baarista waxa uu ogaaday in mid ka mida warqadaha ay ku taallo in la siiyey shirkado gaar ah oo Soomaali ah shirkadahaasi oo kale ah shirkadda Hormood iyo shirkadda kale ee lagu magacaabo dalka ee ka shaqeysa adeega xarkaha telefoonada badda hoosteeda mara ama fiber optic ogolaanshaha shirkadahaasi dhulka lagu siiyey waxaa bixiyay dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud gaar ahaan ra'iisul wasaarihii u dambeeyey Cumar Cabdirashiid Sharmaarke isagoo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaan weydiiyey go'aankaasi sida uu ku qaatay qofka sideeda waxaan rabaa su'aashaas ku hor inaan hal hadal ku dasado qofka markii anaga aan imaanay waxaan imaanay waqti anaga dadkii ugu horeeyay dowladda ay la bixiyey oo sideedaba ay bilaabatay wasaaradda qaarkood inay dhahaan dhulka waa ka maaran arrintaas waan istaajiyey golaha wasiirada afna ugu sheegay waraaq amar ahna waan ka soo saaray oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda iyo warbaahinada caalamka oo dhan aan dhahayo dhul Soomaaliyeed ee dowlad lahayd dowladdii iska lahayd iyo hay-addii iska lahayd unbaa yeelanaysa si marnaba aan uma suurooweyso in ay qolo loo xalaalayo habayana waana ku dadaalay labadii sano ee aan joogay inaan wax dhulah aan wasaarad bixin oo ahaato dhul dowladeed arrimahan xataa aa sheegaysid ee airportka dhexdiisa ah ama ha ahaado dhinaca airportka iyo dhinaca kale buurta korkeeda meel waxaa jirta cableska fiber optic ay kasoo gelayeen oo aniga markaas kula dalka la dhaho hadda ku hore loo siiyey ayaa Hormoodna cable kale ka keentay oo markaas marka waxaan siinay post oo ku meel gaar ah oo ay ka maamulayaan cableskaas maanta wadanka siinaya fiber optic internetka ay hadda ku haystaan arrintaasna arrin ku meel gaar ah dhul ciidan leeyahay marna ciidanka unbaa leh si loo bixin karaa oo loo privatiseyn karaa ma jirto shirkadahana si ku meel gaar ah ku degan yihiin haddii maanta ciidankii baahi ay ka gashay inay dhulkii u baahdaan oo isticmaalaan awalba la-aantood iyo wargelin la-aantood laguma samaynin haddana waxay ila tahay dowladda hadda joogtaa laga rabaa inay dib usoo celiso oo ciidankii usoo celiso gacanta waa gartay wax dhaqaale ah may dowladda siiyeen si dhulkaa loo siiyo anagu sideedaba Haarun waxaan ka fiirinaynay nacfiga ee shacabku leedahay oo ogsoon tahay internetku dadku qaaligu ku ahaa ka horow inta aan fiber optic dalka la keenin satellite ayaa lagu keeni jiray taasna dhibaatay ahayd qiimo badan ku bixi jiray fiber optic in dalka loo keeno annaga waxay noo dabcan shirkadahan hadda Hormood oo kaleeto lacag baa laga qaadi jiray sanadla ah oo dowladda siin jirtay inta aan laga soo saarin sharciga communicationka hadda waxay la tahay sharciga communicationka ee la gudbiyey ayaa qeexaya wax laga qaaday shirkadaha laakiin xilligaa imisaad ka qaadeen idinku dowladdiinii markii aad dhulkan siiseen maya sharci waxaa jirtay lagu heshiiyey wasiirada maaliyadda actually shaqadooda ay ahayd ay la fadhiisteen waxyaabaha in canshuur laga qaado kaabayaasha yacni shirkadaha waaweyn iyo sectorska waaweyn sida telecommunication oo kaleeto xawaaladaha muxuu ahaa hoteelada energy kuwa korontada marka waa lala fadhiisanayay adigu ma jirin markaas law specify gareynaya sida communication lawgii oo markaas baarlamaanka intii aan joogo muddo ay nagu qaadatay waqti inaan la horgeeyo oo la gudbiyo oo akhriskiisii u batay ilaa sharciga laga sameeyay waa in laga qaadaa lacag markaas labada dhinac ay ku heshiiyeen laakiin waa jirta lacag laga qaaday Hormood iyo shirkadaha kale oo markaas rashka jiro intay leegtahay ma xasuusta lacagtaas wallahi hadda ma xasuusta laakiin kulli wasaaradda maaliyadda way yeelan recordska inta laga qaadi jiray waayo su-aasha ii xigta imisa safaaradood baad dhul u ansixisay garoonka ama dhinaca afisyoon ama dhinaca waa sax anagu dee imka wuxuu ahaa maanta hadda waxa fududeeyey in la dhaho safiirkii Mareykanka waa soo wareegay in la dhaho waxaa soo wareegay muxuu ahaa EUD safaaradahan hadda yimid oo dhan annagaa runtii yani u gogol xaarnay inay yimaadaan si ku meel gaar ah intii annaga Kenya intay noogu yimaadaan aan Kenya iskala tacaamuli lahayn waxaan siinay dhul safaaradda Mareykanka EUD oo markaas 5 ila tahay safaaradood ay ku hoos jireen safaaradda Chinese-ka adigu safaaradahaasaan siinay inay meesha soo degaan si ku meel gaar ah inta laga gaarayo inay samaystaan ama dayactirtaan safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada gudaheeda marka dhulka hadda safaaraduhu ay degan yihiin garoonka dhexdeeda waa dhul ku meel gaara ee ma aha dhul ay hadda kadib ay sheegan doonaan dowladahaasi inay iyagu leeyihiin ma aha waa dhul ku meel gaar ah oo loogu talagalay inta hadda xaaladda amniga laga xasilinayo dalka inay sii deganaan laakiin dhulku ma aha marnaba dhul maaragtay sideedana sharci waa jira Haarun airportyada adduunka caalamiga oo dhan fenska diyaaradda markay deganayso fenska la rabo sideedaba inay
airportka u yeesho waxaa jirta sharci qeexaya tallaabo inta tallaabo ama inta mitir lagada offensiska inay u jiraan runwayga diyaaradda ay ku degeyso marka way og yihiin iyagoo dhan inay si kumeel gaara ugu jiraan annagana saasaan kusiina si kumeel gaara intay ka dayactiranayaan isbaaradahooda xaaladda amniga kasoo ramaanayso dhinaca kalena mas-uul ka tirsan shirkadda hormuud oo la hadlay galka baarista waxa uu sheegay in dhulkaasi ay si sharci ah uga codsadeen dowladda soomaaliya si sharci ahna ay ku heleen waxa uu sheegay mas-uulkaasi in dhulkaasi ay ka soo dejinayaan xarkaha marabadda hoosteeda ee keena internetka laguna magacaabo fiber optic waxaa mas-uulku intaasi uu ku daray in goobtaasi ay tahay barta ugu habboon farsamo ahaan iyo amni ahaan labadaba waxaana uu intaasi ku daray inaysan wax lacaga ku bixinin helitaanka dhulkaasi isla dowladdii 20 Oktoobar halkaasi oo ay deganaayeen dad rayid ah oo qaarkood ay siisay dowladdii hore Maxamed Siyaad Barre qaarkoodna ay u sharciyeysay dowladdii madaxweyne Cabdulqaasim Salaad Xasan ee lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Jabuuti dadweynaha goobtaasi deganaan jiray waxaa lagu qiyaasay ilaa 1,000 qoys dowladdu waxay dhulkaasi la wareegtay bishii Oktoobar ee sanadkii 2013 waxaana loola wareegay si dan guud ah iyadoo la sheegay in dhismayaal looga dhisayo booliiska iyo weliba in qayb laga siinayo guddigii doorashooyinka qaranka qayb ka mid ah dhulkaasi waxaa xilligan laga dhisayaa saldhig ay yeeshaan ciidamada booliiska ee degmada Waaberi hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in qaybta ugu ballaaran ee dhulkaasi loo idmay ganacsato gaar ah inay isticmaalaan waxaana laga dhisay goob lagu magacaabo dekadda qallalan oo ganacsatadu ay dhigtaan konteenarada agabka sida ee laga soo bixiyo dekadda magaalada Muqdisho waxaa kaloo isla goobtaasi laga dhisay guryo badan oo ay degan yihiin saraakiil sare oo ka tirsan dowladihii iyo maamulkii soo maray gobolka Banaadir waxaa iyaguna guryo looga jeexay halkaasi shakhsiyaad ganacsato ah Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dadweynihii goobtaasi looga qaaday danta guud darteed kuna faraxsanaa inuu dhulkaasi u baneeyo danta guud darteed wax badan aan wada hadalnay meelo badan isla marnay meeshiina waxaa nalooga qaaday in meeshan dowladdu dan guud u qaadatay waa gartay laga bilaabo aeroboortkii lagu keeno meeshii annagu aan deganayna bira dad loo siiyey iyadii dhammeed dekadda qallalan wax la yidhaahaa laga bixiyey wixii kala dadaa la siiyey magdhowna lagama siin guryihiina la yidhi 50 kuna laydinka siinaa filooyinkiina wax magdhowa wixii filada hayna magdhowgiina loo ballan qaadina waa naloo diiday marka meeshaas sidaas u dhacday waana wax macruufaba haddeer qof aan mas-uul sare ahayn gobolku inuu meesha dego oo aan madax sare ahaynba inuu meesha soo dego loomaba ogolaba gadaalna waxaa la siiyey dad kalea la siiyey oo madax dowladeeda qayb ka mid rag hormuud la shaqaysta oo ganacsatada tijaarta ah oo sheerayda hormuud rag ah gatay qaarna shakhsiyaada guryo ka dhistay waa lagu tixay guryo wada qaali ah oo dadka ay degeena laga dhistay dadkiina saasaa looga kiciyey dhulkaas marka barnaamijkiisu sidaas uu ahaay xeerka 10aad ee dhulalka faqradda 5aad sheegayda qofka meesha haddii dowladdu ay danti guud u dhaaftay dad ay ka noqotay in qofkii awal laga qaaday loo celiyo laakiin maadaama uu dhul qaaliya oo aeroboortkii ku jeeda oo meel amni haddeer maadaama moogtay